wacan oo wanaagsan dhegaystayaal iyo daawadayaal meel kastood caalamka ka joogtaan ha ku soo dhawaada mar kale barnaamijka waxqabadka dawladda oo isbuuc walba kala socotaan warbaahinta qaranka qaybaheeda kala duwan annaga oo aan ku falanqayno waxqabadyadii iyo horumaradii ugu muhiimsanaa uguna waaweynaa ay ku tallaabsato dawladda qaybaheeda kala duwan barnaamijkan ayaa waxaa idinla socodsiinaya maxamed cali juxa isla maxamed cali juxa ayaa soo diyaariyey waxaana soo saartay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dalkiyo dadka dugsi u tahay dawladnimo wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa ay ku tallaabsatay guulo aad u waaweyn iyo waxqabad la taaban karo sida ay sheegeen mas'uuliyiinta ugu sareysa ee wasaaradda maaliyadda Soomaaliya wasaaradda maaliyadda ayaa si waadax ah u qeexday halkii ay joogtay sanadkii 2017 haatan halka ay joogto iyo halka ay ku socoto iyo waxa ay tiigsanayso labada sano ee soo socota sidaa darteed ayaa wasaaradda maaliyadda qabatay shir aad muhiim u ahaa oo markaasi ugu dambeyntiina ka soo baxay natiijo wax ku ool ah shirkan ayaa waxaa diiradda lagu saarayay howlqabadka wasaaradda waxauna ka jawaabayay 3 su'aalood oo kala ahaa xageen ka nimi xageen joognaa xageese u soconnaa howlwadeenada wasaaradda madax iyo shaqaalaba waxay ka wada hadlayeen guulihii la gaaray iyo caqabadaha jira sida looga gudbi karo waxaana ka qayb galay wasiiro dhowr ah oo uu ka mid yahay wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Bayle iyo wasiirka ganacsiga Maxamed Cabdi Xayir Maareeye iyo waliba wasiirka qorsheynta ee dawladda Soomaaliya Mr. Jamaal xisaabiyaha guud ee qaranka mas'uuliyiin saraakiil ciidan shaqaalaha wasaaradda maaliyadda iyo marti sharaf kale wasaaradda maaliyadda ayaa waxa ay soo bandhigtay horumarka dakhliga gudaha dalka ee 6 sano ee la soo dhaafay iyadoo markaas isbarbardhig ku sameysay iyo waxa iska bedelay tusaale ahaan sanadkii 2018 ayaa dakhliga dalka uu kordhay 130% una dhiganta miisaaniyadda guud ee qaranka in sanadkii tagay 5% ka timi cashuuraha gudaha lacagihii laga soo ururiyay shirkan oo ka soo baxay natiijo aad u wanaagsan ayaa waxa si weyn diiradda loogu saarayay dakhliga dalka arrimaha maaliyadda iyo korarka dhaqaalaha dalka haddaba shirkan lagu soo bandhigayay guulaha iyo waxqabadka la taaban karo ee ay gaartay wasaaradda maaliyadda ayaa waxa ka hadlay wasiirka wasaaradda maaliyadda mudane Cabdiraxmaan Ducaale Bayle halka waxay isugu yimid sidii hore loo hadlay inaan sheekaysano wasaaradda maaliyadda sheekaysato iyo asxaabtooda halkan ku sheekaystaan oo ay ka sheekaystaan waxa shaqadoodu tahay waxay soo qabteen iyo waxay qabanayaan iyo halkay ku socdaan in also aan ka wada hadallo furaantii ma mooge waxyaalaha inagu maqan ee loo baahan yahay inaan wax ka qabano oo ay tahay haddii aan asxaabtaada dhegaysan oo ay daan meel isugu iman laga yaabo inay kaasii birirxato ama kaasii bito oo eebekala dhibaatada sii weynaato waxaan runtii aad ugu faraxsanahay in si fiican arrimaha looga hadlay waxaa laga hadlay halkan ka nimi dakhligii baa laga hadlay kharashkii baa laga hadlay tubihii baa laga hadlay SNB arrintii deen cafiskii baa laga hadlay
maxaa ii soo haray marka aniga waxaa ii soo haray tubaha ina waxay ka idhaahdo arrimaha kale waaweyn dee cabiskana waxay ka idhaahdo taa inagu saabsanaa wax ka idhaahdo arrinta tubaha waxaa weeye waddadii loo marayay halka dalkani dooyay magaalooda tub waa garanaysaa waa dariiq meel loo mara weeye dariiqna waa af carabi tubna waa af soomaali tub wada meel bay ku dhamaata meesha ku dhammaanaysaa waa sanadkan aakhirkiisa iyo sanadka dambe aakhirkiisa dabeetana dowladda kale inagu xigtaa ayaa halkaa kasii ambaqaadaysa waddankani meeshuu ku jiro ee godka ay laga saaro oo halka dadku joogaan ee barxadda sare la soo saaro ayaa tuquu yihiin barxaddaa sare waa horumar weeyaan waa is-aamin weeyaan waa nin mara isa saar weeyaan isxaafidoo sagaaji adigoo maydhano nadiif aqlaha ka soo baxa waxaa dhagoonaya adoo qulqulmarsanaya soo bixi weeyaan kasoo qaybgalayaasha shirkani ayaa waxaa ka mid ahaa wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha mudane maxamed cabdi xayir maareeye wuxuuna carabka ku adkeeyey in wasaaradda maaliyadda ay ku socoto waddo aad u wanaagsan kuna ammaanay waxqabadyadooda aan kala joogsiga lahayn ee dalku u hayaan. طبعا annagu wasaaradda maaliyadda kama tirsanin dad badan oo ka tirsanina way joogaan laakiin waxa la yiri wasaaradda maaliyadda iyo saaxiibadeedu weeye marka annagu saaxiibadaas oo kale marka waa idinku ammaanaynaa inaan ugu martay qaataan khibrad badan baan idinka helnay dariiq fiicanna ku socotaan baan aragnay aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan wasiirka ku ammaanaya golaha iskula jirnaa golaha wasiirada iyo guddiga dhaqaalaha laftigoodu qayb badan boqolkiiba 30 ka badan markii la kulmo waxa laga hadlaa shaqo la xiriirta wasaaradda maaliyadda sababtoo ah muhiim bay dalkan u tahay wasaaradda shaqaalaha iyo madaxda halkan fadhiya wasaaradda ka tirsanna shaqo aad iyo aad u muhiim oo lifeline ay dalka u hayaan marka wasiirku inuu hadiyo jeer baraarujinta iyo shirarkaas la daba taagnaado waa ku ammaanay wasiirka waxaan ku ammaanayaa runtii inuu dee wasaaraddii hagay commitment adag la yimid meel adag ka keenay hore u wado oo ku ammaanan yahay ammaantaasoo wasaaradda keliya aan ku ekayna xataa golaha wasiirada iyo xukuumaddu la qaybsadeen meelaha qaarkood dalka sharaf soo hoysay waxaan kaloo ku ammaanayaa inuu wacyigelintiisa tuurta ku wato oo heesihiisa iyo wixiisa ku qalabaysan yahay aad iyo aad baan ugu ammaanay shaqaalaha wasaaradda ammaan bay mudan yihiin runtii gaar ahaan xilliga wasaaradda dowladdan xukuumadda iyo dowladda madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo iyo xasan cali khayre nabad iyo nolol inay waxyaalo badan oo fiican sameeyeen inkasta oo dalku mar walba soo dhismayay haddana masaafo dheer baa la socday 2 sano ee la soo dhaafay gaar ahaan bixinta mushaaraadka oo arrin aad iyo aad muhiim ah marka qaarkood markay goodo dowladda ku ceeba ahayd in sanadkan ama 2 sano la soo dhaafay dowladda intay jirtay laga gudbay oo qofka dowladda u shaqeeya xuquuqdiisa helo sharaf weyn ayay ku heleen wasaaradda waana annaka oo ah kaabayaasha dabcan lacag baan bixin mooyee dakhliga idila ururina waxaanu committed ku dheganahay in la sii xoojiyo qof kasta oo muwaadina dowladda u shaqeeya uu mushaarkiisa helo waa ku taageernaa wasaaradda maaliyadda iyo xisaabiyaha guud iyo bankiga iyo hay-adaha kale lacag bixinta inay arrintaa ku adkaadaan hirgeliyaan bixinta xuquuqdu waxay ka bilaabanta dowladnimadii waa ka bilaaban inuu kordho dakhliga dalka ma aha howl sahlan ama sahal ku timaada waa howl u baahan dadaal aan kala joogsi lahayn in loo huro waqti aad u badan loo helo shaqaale carbisan heelan daacad ah oo dhab ah hoggaan hufan iyo madax tilmaan iyo aragti fogle cashuuraha laga qaado ganacsatada iyo muwaadiniinta Soomaaliyeed waxay soo martay heerar kala duwan waa kan taliyaha hogaamiyaha cashuuraha ciidanka booliiska Soomaaliyeed General Cabdullaahi Xasan Bariise haddii aan la gelin juhdi haddii aan la helin madax wax tilmaanta iyo shaqaale wax qabta oo dheganugul aqoonna u saaxiiba waxba ma kordhaan intaba haddii la isku helay la helay madaxdii wax tilmaamaysay
halka laga tegayo iyo halka loo socdo isla markaasna aan goobtaas uga harayn ee wixii hadal aysan ahayn ee korjoogtaynaya shaqadii waxyaabaha aan hore ugu soconno waa sida su'aalo aad u dhib badanaa nala weydiinayay markii aan bahashaan ka soo bilaabaynay in dadku canshuurta bixiyo sababta uu u bixinayo iyo waxa uu ka helayo oo macnayntooda dhib badanaan ka soo mudan waxaan gaari jirnay mararka qaar aniga iyo agaasimaha ninka la yidhaahdo canshuurta beriga muxudiin inaan si gaara xodxodasho waa taqaaniinaan u malaynaa xodxodana dadka nidhaahdo war magacaa jiriye muxuu ahaa jidkaa lagugu samaynaa isbitaalkaa lagugu wax samaynaa meelaha MCH lagugu dhisaa waana arki doontaa waxaan gaarnay inayna yidhaahdeen 2 biloodaad wax naga qaadeen hal meelood bulakeeti saarteenna ma arkine beenaan noo sheegaysay waxaasoo dhanaan soo marnay kadib markii laamiyadii la bilaabay dhismayaal badan ay bilowdeen wasaaradihii qaarkood muxuu ahay dhismo lagu bilaabay runtii waxaad u malaysaa dadku inuu maalinba maalinta ka dambaysa muxuu ahay soo kordhayo lala yaabi maayo ganacsatadii la yaqiin iyo dadka canshuur bixiyaasha ahaa dareemi kara cilmi ama ule ama waayo aragnimo in lagu faano anigu canshuur bixiyaan ahay waxba laygu male dalkayga waxaanan u qabtay inay muxuu ahay dadkii gabawsii noqdeen igaaladii dhilahaa soo baxday oo xoogaa waxay heshay maba yaqaaniinba canshuurtu waxa ay u gasho inaanay ahayn waxaad bixinayso ee ay tahay wax adiga kugu soo noqonaya in yaraa garan karta inay guulaysato shaqada wasaaradda maaliyadda ee dakhli kordhinta ayaa waxaa la sheegay inay hormuud u yihiin madaxda qaranka ugu sareysa oo ay ka mid yihiin madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha dalka mudane xasan cali khayre madaxda dowladda Soomaaliyeed madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo runtii shaqada meeshan maanta ka wada hadlayno hormoodka yani ra'iisul wasaaruhu tub walba isaga gudoomiya iyo maalin oo dhan tubaas uu ayuu ku jiraa haddana ku jirina waa wasaaradda soo maray wasaaradda tayada gobol SNB program mar walba dadaan ku jirta asagana hadiye jeer ku soo dar in laga hadlo leena masiirka siyaar marka aad iyo aad ma naqaya ganacsatada Soomaaliyeed isma saamii dowladda ee loo kan ganacsatada Soomaaliyeed waxaan ka hadlayno dhan gundhigu ah cashuurtoodii dhiibay ka shaqaynaya in dalkani soo noqdo oo si wanaagsan ku soo noqdo ayaa la mahadcelinayaa waxaa kaloo mahadcelinaya dadka kale cashuuraha bixiya aan bayashariga waa inay waxyaabaha kale ka bixiya shaqaaluhu ka mid yihiin laga jiro cashuuraha iyo wax yar qaata ayaa la mahadcelinayaa waxaana mahadcelinayaa ummadda Soomaaliyeed wasaaradda maaliyadda iyo xafiiska xisaabiyaha guud ayaa waxa ay ku guuleysteen sanadkii tagay in habeyn iyo isku dabarid loo sameeyay nidaamka bangiyada iyada oo markaasi loo marayay nidaamka maaliyadeed ee caalamiga ah dawladda waxay dadaal badan ku bixisay sidii loo yareyn lahaa lacagaha gacanta lagu qaato oo kaashka loo yaqaano ama mushaaraadka lagu bixiyo xisaabiyaha guud ee qaranka Faadimo Cismaan Faarax oo kamid ahayd mas'uuliyiintii ka qayb gashay shirkani lagu soo bandhigayay guulaha iyo waxqabadyada wasaaradda maaliyadda ayaa hadalkan jeedisay sanadkiin la soo dhaafay waxaan ka gudubnay xooga saarnay bangiga arrangement bangiga sidaan u arrange garayno ayadoo la tixgelinayo TSA Treasury Single Account in loo maro nidaamka maaliyadeed ee caalamiga ah oo ku saleyno shaqadeena habraaca maaliyadeed waxaan aad u hirgelinay commitment control barnaamijkan la yiraahdo oo aad wasaaradaha ay noogala shaqeeyeen oo aan marinay all hay'adaha dawladda oo dhan commitment control macnaheedu ay tahay si aan u yareyno kaashka gacanta lagu qaadanayo kaligeed oo ay noqoto vendor inaan ku bixino
meeshaasoo aad inoogala shaqeeyeen central bank oo mar alla markaan u gudbino venderska ay si degdega lacagahooda u helaan waxaa kaloo xafiiska ku kordhay cash management unit oo xisaabayo oo soo diyaarinayo forecaster lacagaha loo baahan yahay bil walba inta aanan la gelin qarash ama inta aanan la gelin miisaaniyadda lacagta noo hartay maalintaas taallo dakhliga noo soo xerooday ay noo soo xereeyeen waaxda dakhliga ayaa waxaa laga sameynayaa cash forecaster taasna aad baan u hirgelinay oo waxay noo gashay kaalin fiican oo si fiican ayaan ugu shaqeynaa oo kaashka maalintii inta la xisaabo ayaa wasaarad walba intay heli karto ayaa lagu saleeyaa waxaa kaloo jira cash advance wax la yiraaho oo safarada markii la aadayo oo iyadana aan yaraynay cash advance-ga oo nala ka rabay ay ahayd benchmark oo ku salaysan SMB-ga oon hadda aad u yaraynay iyo xisaabihii ka furnaa bangiga dhexe oo hay-adaha u furnaa oo aan xirray oo inta muhiimka kaliya laga reebayo inta badneed aan xirnay ma haday ka gaarto central bank oo aad noogala shaqeeyay mas-uuliyadda maaliyadda dalka waxa ay tahay mas-uuliyad wadareed oo markaasi in badan oo muwaadiniinta ah ku leh kaalin ay ka ciyaaraan gaar ahaan wasaaradda maaliyadda iyo howlwadeenadeeda wasiirka maaliyadda Soomaaliya ayaa ku booriyay shaqaalaha wasaaradda maaliyadda inay qaataan doorkooda horumarinta maaliyadda dalka inteena hadda joogtay mas'uuliyad bayna saaran shaqaalaha dawladda shaqaalaha waxaa hadlaya Ministry of Finance waxayna saaran maamulkii maaliyadda dalka baa madaxa laga saaray hadda bal imagine maamulka haddaan hagaajino waxa hagaagaya wax walba waa toosaya inaan ururintiisa hagaajino inaan maareyntiisa hagaajino inaan bixintiisa hagaajino and more important in sharcigu ina hago oo ina hogaamiyo ku tiri ma waxaana la yidhi ma hebel baa sidaa yeeli jiray ma sharcigu muxuu yidhi aan barano wax haddaan baran weyn warartaas sharcigu muxuu yidhi شرعي أصلا سيدا ويا وصول لأن الشرعي وحلو صنع صنعية وحماش على صنعية individual interpretation لصنعية وفي شيء مفروض نسك صنعية ده القرآن ويكل الدوي هو قيمية وحاصل ماش على صنعية على ليه نحن على سكون ما دو شرعي أصلا صنعية مكان بعد هو هنا وحوالها قواعد سام إن الشرعي له كائن هذا نعم أنا وطن سال وح بدل ما سوجي دل كانوا ونحسن وانا السبب دل كان دبته لقت إيميل أنا وانا ودي سنة ما كان بيجي لهورنا ولا بيجي هسه هذا ما يقدر ما ته ما قادر سومه سيدنا هاي ما هاي بيجي سيدنا ما هاي ما هاي أنا ديو أهان بدو يدوتو يا سيدنا هاي ما هاي نو أهان بدو يدوتو أنا أدري هاي وحوي وحنا وفقنا الجيش أفريقيا وتحت لقي كعبور in ganacsatada dhiirigelin loo sameeyo waxay keenaysaa in dakhliga soo xiroonaya uu kor u kaco aad ayaana loo amaanay in mudnaan la kala siiyo ganacsadaha cashuur bixiyaha ah iyo midka aan bixin waxaana la soo jeediyay in maalgashadayaashuna la dhiirigeliyo si ay markaasi ugu dhiiradaan in wadanku keenaan maalgashi waxay ahayd maanta saaxiibada wasaaradda maaliyadda in lagu daro rugta ganacsiga iyo ganacsatada la marti qaado wixii halkan ka tusaya wixii si fiican loo maamulayo ay arkaan laakiin ana u jooga shaqada dawladdu waa miisaanada idinku waa ururisa annaguna dadka laga ururiyaan maalin kasta aragna oo la fariisana ganacsatada ayaan la fariisana sidii halkan bariisa ka sheegay generaalku wax badan inaynu wada qabano ganacsiga fiican ninka ganacsadaha ee fiican inaynu dhiirigelino wax dhoofinta inaynu siyaasad ka yeelano midaysan sababtoo ah
adduunka oo dhan ma qiimeeyaan waxa la soo dejiyo. waxa la soo dejiyo shaqo lagama helo, horumar laguma gaadho, wax soo saar ma badiyo. laakiin haddii uun bini'aadamku ma dhammee hal atam aad u baahato, laba u baahato, siyaasadaa lagu keena, qorshaa lagu keena. wax iska furan dalkeena mooye adduunka meel kale ma jiro, xataa dalalka burbusa xataa ma jiro. ganacsatada wax dhoofisa waxay ka cabataa wasaaradda maaliyaddu inay cashuur badan saarto. aniga waxay ku yidhaahdeen kalluun ma dhoofin karo, sababtoo ah hal tan ayaa $2,000 la cashuuraya. waan hubiyo wasiirka waa ka arkay, waan iga balan qaaday inaan ka fadhiisano wax soo saarka dalka oo dhan. laakiin wasaaradda maaliyaddu waa inay dhiirigelisaa wax dhoofinta dalka. waa in cashuur dhaaf aynu ka fadhiisanaa u samaynaa. waa inaan ku dhiirigelinaa si fudud inay ganacsiga ku dhoofin karaan. intaan xafiis halkan imaan waxay la kulmay dad maalgashadayaal oo masaariya. waxay ku yidhaahdeen maxaa nagu dhiirigelinaysaa inaan ganacsi samayso, halkaan ka samayso. marka inaan siyaasad ka yeelano wey. laakiin waxaa idinku dhiirigelinayaa wasaaradda maaliyadda inay ganacsiga iyo cashuurta u fududeeyaan dadka wax dhoofinaya, inaan siyaasad ka yeelano. waddanka Soomaaliya waxaa loo soo dhoofiyaa alaabo badan, waxa uuna dhoofiyaa alaabo aad u yar. waddan walbana waxa uu ku xisaabtamaa waxa uu dhoofiyo si markaasi halkaasi uga soo baxdo shaqo abuur, dakhli iyo dhiirigelin ganacsi. ha yeeshee haddii waddanku keliya uu diiradda saaro waxa uu soo dhoofiyo keliya, wax micno ah oo aad u weyn ay soo siyaadinaysaa ma jirto, sida uu sheegay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye. cashuurtu waxay adduunka oo dhan leedahay mid la dhimo oo la dhiirigeliyo, mid dhexdhexaad ah oo macquul ah, iyo mid wax la saaro oo dalka laga joojinayo. waxoogaa waddankeena cus baa la keena, digir baa la keena, galley baa la keena. yacni wax dalkaa warshadihii ma shaqayn karaan. waxaanay u shaqayn karin producti jaban oo maybe koronto nucleara lagu sameeyey ayaa la keenayaa, limitna male. marka warshado ma shaqayn karaya, shaqaalan lama heli karayo. ma jecli hawsha inoo taalla ama anigiyo wasiirka noo taalla halka inaan ka akhriyo, waa fara badan tahay. laakiin inaad baraarugsanaataan oo dalkeenna wixii u dan ah aynu ka wada shaqayno. waxa beeraha Soomaaliya ka soo go'a ama warshadaheedu soo saarayaan ka celinno warshadaha kale waxa ay samaynayaan ayaa loo baahan. taabuur baa ka soo dega dalkeena, daro baa ka soo degta, shiishad baa ka soo dega, qabri baa ka soo dega. midka heshiiska Soma ayaa banaanka u soo baxa oo ganacsadii Soomaaliyeed dhibaya. cashuur dhaafka ku galay xalani ayaa dhibaya. marka anigoo ku hadlaya afka ganacsatada iyo afka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha, wax badan ayaa noo dhiman si aynu dalkeenu sida dalalka kale u yeesho nidaam wax dhiirigelinaya, wax kobcinaya, wax reebaya. weli ma lihi mudane wasiir arrintaa haddaan wasaaradda ganacsiga nahay, adiga wasaaradada kugu soo soconnay maanta haddaad wada fadhida. waxaanu doonaynaa dalkeenu sida dalalka kale inuu dhalo. dal waliba maanta adduunka wuxuu dhiirigelinayaa intaasoo milyan baan dhoofiy, intaasoo dhaqaalahayga, intaasoo waddan baan wuxu dhoofi ayuu qiimaynayaa. ma qiimaynayo intaasoo alaabaan soo dhoofistay, qiimo male. baahi markay kuu geyso meesheeda, laakiin qiimo male wax soo dejintu, wax dhoofinta ayaa qiima. maalmahan ayaa si weyn loo hadalhayay mushaaraadka ciidamada oo markaasi jirtay laba doodood oo iska soo horjeeday, in ciidanka aan mushaar qaadan iyo in ciidan walba oo diiwaan gashan oo maray nidaamka maaliyadda uu qaato mushaarkiisa. haddaba doodahaasi maxay ka yidhaahdeen wasiirka ganacsiga iyo wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya? runtii haddaan wax yar ka cusub mushaar bixinta, anigu hadda wasiirka maaliyadda markaan arkay hal su'aal baan weydiiyey.
waxaan ciidamadu wiiga waxa laga hadlaya ciidamadu mushaar mehelin meel bay ka soo baxeen arrintan maxaa ka jira waana arrin shacabka Soomaaliyeed isweydiina markii madaxda qaranka oo dhan baa tiraahdo mushaarka waa bixina ciidamada manlamaas anigu intaan wasiirka qowlkiisa qaadin waxa aaminsan arrintaas inaanay waxba ka jirin ayaan aaminsan sababtaan aaminsan waxa xasuusta xukuumadda badan baa ku soo jiray markasta oo islaana ciidanka tirakooda dagaal baa la gelin jiray dagaal wasiirada intaas soo jeer baa loo qaybiyay xerooyinka ciidamada anagoo golaha wasiirada ka tirsan waxa ciidanka khalad baa ku jira soo tirakooda markaasa dagaal shabaabka iyo niman kale aan ishayno oo aan la dagaalamin baa dagaal la gelin jiray si aan tirakoobkaas u dhicin anigu waxaan leeyahay dawladdu waxay waday inay ciidamada qaranka tirakoobto ayay waday waxaa la ogyahay in dad ay jiraan tiraday doono ha noqdeen ha yaraadeen ha badnaadeen waa dawladda iyo wasaaradda maaliyadda gaashaandhigga ka jawaabi doona laakiin dad daba mushaar qaata inay jiraan baa golaha wasiiradu aad shaki weyn uga qabaa ama loo ha yaraadeen hadii waxaa la hubaa dad ciidaa ka badan oo hoteelada ka shaqeeya oo hay'adaha security-ga ee dharka labisa ka shaqeeya inay ciidamada qaranka tirsan oo laba mushaar qaata anigu intaan wasiirka waxaan lahaa kuwaas afoodada wada ogaada gacmaha meesha ku jira gacmo dawlad dumisa ku jira gacmo lacag xaaraana qaadanayo inay sii qaataan doonaya ku jira saraakiil baa ku jirta wasiirku wuxuu iga jawaabay qof ciidan oo maray nidaamka loo sameeyay ciidamada oo mushaar la ma jiro ana believe that taasoo rumaysan shaqaalaha dawladda iyo ciidamadu mushaar bay wada qaataan manaafacaad bay ku leeyihiin budgetka laakiin dawladdani qaraar wax gaadhay qof wal oo dawladda lacagta cashuuraha waxa laga siiyaa in faraha laga qaado oo la ogaado qofkaasi waa kee oo la garto qofkaasi waa kee shaqaalaha ku soo horreysiinay waxaan soo saaray qof saddex qof ah waxaan soo saaray qof 4 number wata saddex qof oo aan jirin number kaliya wata dad meelo kale badan ka shaqeeya waxaasoo dhan way soo dhamaatay qofka saddex mushaar qaadanaya ama 4 mushaar ee yimid baa ku soo haray ama meeshii laga eriyay xanuun ku dareemay waa garanaysa maanta ciidamada ku jira ciidamada waxay ka mid yihiin dadka shaqaalaha ka mid anigu waxaan ku talinayaa waxa weeye hadal badan Soomaalida hadal badan dad baa dhaanta runtu waxay tahay waxa weeye adeero hadal xalaal tahay isxalaaleey faraas ka qaad marna marka faraas ka qaad anigu hadii aan rayn meesha jirto ku gulay walaalkay faraas ka qaad numberkaaga hadal qoro hadalkiya niicniicda iska qaad hadaa jirto mushaar la siinaya hadaa jirto laakiin hada xaqiiqi inay jirto oo aan qofkii labaad ee kala saddexaad meesha kala ahayn waxba qaadan maysa bariis aan kama isku imanayna waa la bursanaya xaalan dambe oo dad qaadanayaan cidda soo noqotay waa soo dhamaatay mana dhici doonto haddaan anigu ka soo tirsanaa xukuumaddii Cabdullaahi Yuusuf Cali Geedi oo ay loo diideen inaan tirakoobno ciidamada dad oo dana gaara ku qaba haddaan ka soo tirsanaa dawladdii Sheekh Shariif iyo Umar Cabdirashiid oo aan xasuusto aniga mariiniya halkaa lagu qoray inaan khatar ku galnay tirakoobka ciidanka oo dagaalna la ku riday haddaan ka soo tirsanaa dawladdii Xasan Sheekh sorry iyo Umar Cabdirashiid oo loo suuroobi weyday ciidamada noolnayn dad khalad ku jiraan dad hoteela ka shaqeeya ku jiraan in la tirakoobana loo diiday maanta dawladda nabad iyo nolol ma dib dambe uma waabanayso meel laga soo baxay systemka dawladda ee socda looga joojinayo baaris xoog lena waa lagu hayaa
gacmaha dowlad dumiska ee ka dambeeya ciidamada inay propagamaan idaacadaha iyo meelaha qaarkood oo ka shaqeeya wiigan inay dowladda propagamaan madaxda qaranka khudbadahooda propagamaan waxa weeye sida wasiirku ii sheegay aniguna aaminsanahay qof nidaamka maaliyadda ee dalkan kaga baxayo dhibaatooyinka dhaqaale iyo dayn cafiska maanta joojin karaa ma jiro way laga waantooy waxaan ogahay in baaris adag ku socoto dadka riixaya ciidamada soo baxay la wareysan doono ciidamada cabanaya la wareysan doono idaacadaha iyo dadka socialka media boombooriya dadka lacagta siiyay la wareysan doono lacag bay qaateen sidaasay ku boombooriyeen ay briefta in wasaaradaha ka shaqeeya dakhligooda ama dhaqaalaha ay mar isku yimaadaan sidoo kale isku yimaadaan oo dhaqaalaha waddanka madaxa inaga saaran halkaa inoo saaran garbaha inoo saaran ee mas-uuliyadeena aan ka wada hadlo real haddaan muxuu ahaynane lacag inagu filan heli weyno oo aan dabooli kari weyno kharashka dowladdu ku socoto gawaarideedii mushaarooyinkoodii oo weliba aan waxyaalo kale samayn weyno ma noolaan karo waana shardi weeyaan marka la doonaya waxyaalo kale lagu qabto inaad kaa kabadayso sidaa u aragtay dakhligu sarakacaya taasi waxaa ku dhan barnaamijka waxqabadka dowladda oo aad kala socoteen warbaahinta qaranka qaybaheeda kala duwan waxaana idinla socodsiinayay maxamed cali juxa isla juxa ayaa soo diyaariyay waxaana soo saartay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska nabaadiina iyo nooli kulanti wassalaamu calaykum